idinku yeedhay waxaan saxeexayaa sharcigii dhismaha axsaabta siyaasiga waa la geysan doonaa maxaa hayday marka la wareejiyo naqil baa laydinka siin doonaa. waxa weeye boore maalintii aynu ka nimi tallaabaynu qaadno waxaa la qaaday shacbigani qaaday shacbigu qaaday qaranka Somaliland tallaabu qaaday uu ka tallaabsaday jabhadnimo oo u tallaabsaday qarannimo iyo maxaa hayday qowmiyad loo tallaabsaday. maantana 7 sano haddii aynu taas soo wadnay waxaynu qaadaynaa tallaabadii labaad ee dhowr jeeraan oo khayryada ka hadlaaya aan tilmaamayay ee aan lahaa tallaabadaas aynu qaadno mooyaane halka aynu marayno maanta aynu gaadhnay nidaamka aynu hayno meel ka sarreysa laguma gaadhi karo. waynu ku gaadhnay axsaab la-aan iyo siyaasiyad la-aan iyo qabiili wax ku doorasho halkii aynu ku gaadhi lahayn waynu ku gaadhnay meel aynu dambe oo aynu maxay hayday nidaamkaas ku gaadhaynaa ma jirto ilaa aynu ka baxnano aynu tallaabadii labaad qaadnano qowmiyadda iyo qaranka Somaliland ma socon karo. marka maanta aynu doonaynaa tallaabadii inaynu qaadno. tallaabadaas waxa weeye tallaabadii axsaab loo gudbi lahaa axsaabtii oo ah dadkii aynu aqoon jirray wixii 69kii ka horreeyay axsaabtii aynu aqoon jirray oo weliba 69kii wixii ilaa maanta wixii aynu soo marnay lagu faa'iidadii aynu iyo waayo aragnimadii aynu soo qaadanay lagu daraayo oo aan tii markaa 60kii iyo maxay hayday wixii jiri jiray hashii iyo awrkii aan ahayn hashii iyo nirigtii aan ahayn xilka ii dhiibataan xisbiga haddaa xilka ii dhiibataan sidaasaan u wadaya. programmada darabta la kala doorto shacbigii wuxuu kala doortaa ay tahay jihayn iyo maamul iyo tilmaan la tilmaamayo wixii qarankan loo qaban lahaa. tallaabadaa weyn ayaan doonaynaa shacbigii inaynu qaadno. ilaahay haynoo barakeeyo. waa ka qaynuunkii maantaan saxeexaya waana laydin qaybinaya haddii alla yidhi. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا مفيدا وهاديا.